kulanti waxaan daawadayaalid ilkiinba kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare oo ka tirsan baarlamaanka hirshabelle sidoo kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudan xildhibaan marka hore kusoo dhawo SBS aad iyo aad waa ku dhawahay waxaan rabaa inaan dhowr su-aal oo hirshabelle ku saabsan ku weydiiyo haddii aad ii ogasha tafadal ugu horeyn buulo burde waxaa ka taagan xaalad aada u cakiran muddo 5 biloodana wax maamula kama jiro gudoomiyihii degmada ee la magacaabay si dhuumasho ayuu ku tagay buulo burde si dhuumasho ayuu ku joogaa odayaashii isagana waxay joogtaa kala qabta xaaladahaas maxaad kala socotaa aad u mahadsan tahay dhuumashaal habeenaa la galaa maalin uu tagay gudoomiyaha sidaan ka warqabno waxaa lagu tagaa diyaarada baawar laguma tago diyaarada ugu tagay garoonkan waa laga soo dhaweeyey maantana magaaladiisu dhex maraa inta aan ka warqabno laakiin tegitaankiisina mid ay wada ogaayeen waa madaxweyne maxamed cabdiwaare madaxweyne ku-xigeenkii xildhibaanada kasoo jeeday degmadaas ay ogaayeen ama bixiyeen ay ahayd markii la magacaabay dadka deegaanku way diideen in la geliyo degmada uu tagana waa lagu dhici waayey hadda markuu tagaayeyna dee warbaahintana kama warqabin dad soo dhaweeyena maanan arkin dhinaca warbaahinta waxaa la sheegay in gudoomiyihii uu joogo oo keliya cidda soo dhaweysay goormay soo dhaweysay runtii hirshabelle sidaa la socoto shaashaayo 4.5 waa degmada buluburti qayb kamida ayuu kasoo jeedaa guriga hooyadiisa ku nool waalidkiisa ku nool qayb kamida ayuu kamid yahay boos ka banaanaa nin walaalkiisa lagu bedelay ayaa lagu bedelay sabab marka uu ku tegi waayo iyo sabab loogu diido ma garan karo gudoomiyihii ka horreeyay oo aan wareystay wuxuu sheegay inuu cid xilka uu ku wareejiyo uu la-yahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahana ayan kala hadlin wax xilka qaadisa iyo cid la magacaabay maxay tahay waxaan hoosta laga magacaabayo oo hoosta laysaga dhiibaayo runtii adina waa la socotaa arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha oo ay amraan madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeenku ayaa wax magacaabada waxna ka bedesho warqadii lagu magacaabo nagu sitaa warqadii duqa magaalo lagu magacaabo kala wataa kuwa ka horeeyay lagu magacaabo wataa marka ma garan karo tiisa xilada ay leedahay iyo kuwa kale xilada aysan lahayn ma jiraa waddo aad u martaan ka xukuumad ahaan maadaama golaha wasiirada aad ka tirsan tahay cidda xil laga qaadayo cidda xil loo dhiibaayo waddo aad u martaan soo ma jirto oo tixraac noqon karta runtii tusaale gudoomiyihii xilka laga qaaday sababa looga qaaday layma sheegin buu yiri cid ila soo xiriirto xil laga qaaday ma arkin buu yiri madaxweynaha buulo burda yimid anna buulo burdaan joogay ilama hadlin ilama soo xiriirin uu yiri xildhibaano adiga aad kamid taha tagay lama xiriirin so uma ekayna dagaal gaara kula jirtaan qof shaksiya oo aad yani si wax siyaasadaysan aad meel uga ceersanaysaan balse wax adoo qiila aana jirin xilka looga qaado arrintaad ka hadlaysa kanaal iyo beer maaha taas maxamed cabdiwaare oo madaxweynaha iyo cali guudlaawo xuseen madaxweyne ku-xigeenka iyo masraxaad laad weydinaya waay buulo burdo kasoo jeeda xildhibaanada buulo burdo lagala tashtaadna kamid tahay ninkan la magacaabay hadda gudoomiyaha ah yaa lagala tashtay intaad ogtahay xildhibaanadiisi ma ku jirta adiga qayba ka waxaad soo jeediseen kii hore xilka laga qaado kana la geeyo meesha sax maxaad xal qayb uga noqon weyseen in buulo burdo ay si nabada ugu shaqeeyaan kan hadda la geeyo inuu ku shaqeeyo kii horena uu ku qanciyo lagu qanciyo in xilkan uu meertay oo loo dhiibay lagana qaado gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday anaga kuma talin xilka laga qaado xilka qaadadiisina waxay ahayd mid qalad ah wasiirka arrimaha gudaha sida uu sheegay anigu raalli kama aynu yiri madaxweyne ku-xigeenku talo ku bixiyay in arrintaas qalad tahay go-aan madaxweyne u gaaray ahayd haddii arrintaas dhacday kadib madaxweynihii waxaan kala hadalnay war ninkaas haddaan dembi lahayn sidiisa loogu celiyo uu naga aqbali waayo wuxuu naga codsaday in qof kale la keeno sababtaas ayaan ku keenay marka madaxweynaha iyo isagaa is aragsanaa ujeedada meeshtaan taban golo deegaan ayaa buulo burda loo waday war shiiqaa la sameeyey degmada labaad ee hirshabelle buulo burday ahayd siyaasad ahaan sida la dejiyey wasiirka arrimaha gudahana uu sheegay buulo burda inay golo deegaan yeelato ma idinkoo xildhibaanaha diidan ma madaxweynaha hirshabellea diidan ma wasiirka arrimaha gudaha diidan mise dadka deegaanka diidan su-aashaasi sida adigaba la socoto golo degaan waa ogolaansho bulsho waxay taladaas ka go-daa shacabka buulo burta oo isla ogol haddii marka shacabka buulo burta lagu qasbo maamuladoodii qalaasal iyo isku horkeen lagu sameeyo saasi ma ku samaysmayso golo degaan golaha degaanka wuxuu samaysmaa maamul dhamaystiran matalaadii beel kasta ay ka arkayso kadib ayaa golo degaan loo gudbaa marka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkii iyada ka tirsanaa
ee golaha deegaanku inay kala doorataan moodaa oo ay golaha deegaanka dooratay maamulkeedina ay luuday xildhibaanada kasoo jeeda buulo burde markii Hirshabelle laga soo tago buulo burde arrinkan qalalaasaha ka taagan buulo burde ma ka shirteen ma ka tashateen xildhibaanada kasoo jeedo Hirshabelle ama gobolka Hiiraan ama degmada buulo burde isku aragtay ay ka yihiin waxay la wadaageen madaxweyne ku-xigeenkii waxay la wadaageen madaxweynihii shiraan ka wada yeelanay shacab iyo dowlad in laga saaro la kala saaro dowladnimo go-aankeeda waa mid gudoomiyaha ku tagay qabiil iyo qaran la kala saaro waajibkaas ayaan wada qaadanay madaxweyne maxamed dumaara kulankaasi goobjoog ka ahaa waa isku wada qancinay maamulkuna waxaan leenahay ha shaqeeyo laamaha amniguna hala shaqeeyaan odayaasha amniguna gacnaha siiyaan in maamulkaa shaqeeyo madaxweyne waare buulo burde isagoo fadhiyo khudbad dheer jeediyey hadaladiisa waxaa kamid ahaa waa ku fashilina buulo burde iyadoo ammaanka iyo kulli laga hadlayo haddii maamul ahaan aad u aragteen inaad buulo burde wax ka qaban weydeen maxaa idiin diiday in odayaashii iyo dadka deegaanka aad tiraahdaan inta golo deegaan laga sameynayo ciddii aad u aragtaan inay idiin hogaamiso keensada maadaama idinku aad gudan weyseen doorkii aad lahaydeen waxaad moodaa xoogaa adigu laftigaagu xamara timid xoogaa inaad gadaal Hirshabelle u fiirinaysaa laga yaabaa anigu ma fashilmin laakiin madaxweynaha sheegay shacab meel uu awood ku leeyahay lama gaarin shacab xilli wax soo doorto lama gaarin laakiin golaha deegaanka nidaam shacabku iyagu wax ku keensanayaan ayaa la xaaraya maadaama golo deegaanba ay idinka suurta gashay in la sameeyo maxaad si ku meel gaara odayaashu u dhihi weyseen inta golo deegaan laga sameynayo qof keensada maadaama idinkii aad awoodi weyseen 5 bilood buulo burde wax nidaama kama jiro laba gudoomiye degmaa jirto mid xamar uu iska joogay oo dadka qaar ay ku xantaan caasimada koowaad ee Hirshabelle inay tahay Muqdisho midna waa tan buulo burde wareegayo marna lahaa cid xilka ka qaadaan la ahay oo iga wareejisa marna de xataa dadkii macaawinooyinkii la geynay aan ognahay in dagaal ka dhaceen oo maamuladii halka iska jira isku qabsadeen marka xaaladaas inaad ku daawataan ummadii Hirshabelle aad matalayseen miyaad u aragteen qiil idinkoo aan ogahay waxa idin dhiman aad ku soo laabanaysan wax yar tahay shaashaa maamulka degmadii gudoomiyada degmadii duqi magaaladii ku-xigeenadii waxay ku sugan yihiin degmada buulo burde shacabkoodii ay maanta shirada lahaayeen laamaha amniga taliyaasha ciidamada waxaan hortaada ugu faraa inay la shaqeeyaan maamulkaas qabiil iyo qaran la kala leexiyo maamulkii Hirshabellena waa jiraa degmadaas soo dhammaystiran shacabkuna iyo maamulka labay ka yihiin dadkii la xukumi lahayo marka tala waxay ku leeyihiin inay amniga kala shaqeeyaan Hirshabellena way jirtaa wayna jiri doonaa wixii qaladna waa la saxaya insha Allah odayaal isgaashoon buursaday oo buulo burde ku nool dhowr maray warbaahinta ka hadleen warqadii xataa soo saareen qoraal ay leeyihiin waxaan Hirshabelle ay wado nuguma socdo maad u qancin la adiin odayaashaas waxay ii sheegtaa hal degmo oo Hirshabelle ka tirsan oo odayaal ka hadlaayeen maamul dhinaca aragtin kale haddii kuwa kale iyagu u arkeen inay ka aamusaan degmooyinkooda oo ay reer buulo burde odayaashooda ka hadleen miyaad ku colaadinaysaan maya waa raganimada ka badatay waxaad moodaa marka nabadoonadii lagu caleema shubay lagu caana shubay degmadaasi inaysan meeshaas howl taabuladii waaye dadka warqadaha qoraayo yani waa dad aan nabadoon ahayn nabadoon waxaa la dhahaa ninka lagu caana shubay oo beel ay dooratay marka gacan yaryaasha waaye gacan yaryaasha waxaan leenahay tala kula noqda nabadoonadii deganaanta waxay anfacay dadka reer buulo burde horumar wuxuu imaanaa haddii maamulkaas jira reer buulo burde ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqoto ama xildhibaan ha noqoto ilmaheenna ma joogaan buulo burde nabaddu ciddii anfacayso oo wadajirka anfacaya waa reer buulo burde nabadiina garta dad dhiban oo haddana dheefsan waa xanaaqa iska dhaafa dantiina garta maamulkiina la shaqeeya xildhibaan ahaanan ku wareysanahay 3 sano iyo bilayaalaad jirtaan baarlamaankiinu intuu fariisto iyo intuu socdaa badan fadhigiina waa Muqdisho cusublo madaxweyne hore ahaa waxaad xilka uga qaadeen Muqdisho xarun u ah markii aad xilka ka qaadeen waaraad keenteen waare cali gudlaabe ismaan barre iyo xildhibaanadii muddo ka badan ama ku dhow bil Muqdisho ay joogeen amaba in ka badan 2 bilood way ka maqnaayeen caasimadii Hirshabelle ee Jowhar maxay tahay waxa aad ka rajaynaysaan Hirshabellada cusub ee bilaha ka haray haddii dadkii ay qawaaf idinka wada qabaan oo ay idin arkaan kuwa danta dadka aanu ka shaqeynayn su-aashaas markaan ku weydiinayo waxay tahay waxaan ku dhex jiraa bulshada inta badanna waxaan hayaa xogaha dadku waxay idinku dhaliilayaan ka gaar ahaan xildhibaanada inaad eegataan khidmada yar ee aad ka qaadataan Hirshabelle oo bilna aad heshaan bilna aad weysaan mas-uuliyadii ladiin igmadana aad ku doorateen kuraas wasiir ah oo mararka qaar seminaaro dalka dibadiisa uga qayb gashaan oo aad ku mushaar la adihiin
mas-uuliyadda hirshabeelle ee idin saarneed waad gabteen sida cad rajo miyaysan idinka jirin hirshabeellada cusub ee kale inaad timaadaan maxaa laydinka la-yahay saansaan bilahan dhiman aad isu ekaysiisaan dad matalaadii loo igmaday qabanahay inaan shaqeyna caddeynaan ku siinaa waxaa la yidhaha hirshabeelle horteyn ma jirta maya hirshabeelle wasiiro leh xildhibaano leh maxkamado leh maamulo leh dadkii abuuraan nahay intaas waa waxqabad laakiin gobollo hiiraan iyo shabeellaha dhexaa jiray maxkamado way jireen hadda waxaaba batay in shabaabkii loo tago oo loo dacwo tago oo cadaalad daradiini sida laydinku sheegay inta laga cararo shabaab dadku ay miciin bidaan oo cadaalad u doontaan marka waxaad leedahay inagoo sidaasaa wax qabanaad leedahay gurigaa marka la dhisaayo hoosaa laga bilaabay aas-aaskayaan nahay bulshada marka la gaaro hadday nagu qanacsan tahana ama minalaahi ilaahay naga soo siiyo waa soo noqonaynaa haddii aanan soo noqonna midna lamida oo meeshii joogta meeshii annaga aan ka bilowna meel ka fiican ka bilaabayo ayaan kusoo dhaweynayna insha allah ammaanka hirshabeelle waa laga dayrinayaa jawhar diyaaradaa lagu tagaa buuloburda diyaaradaa lagu tagaa beledweyne diyaaradaa lagu tagaa marka laga soo tago dhulkan xeebta warshiiqa cadanle oo baabuurka naftirkiisa allow imari lagu tago maxay tahay waxaa ka ammaan ahaan idinka qorshaysan xukuumadda aad ka tirsanta runtii hadda haddii aad kismaayo aadda baabuur kuma tegi kartid baydhabo hadda aadana baabuur kuma tegi kartid jawhar ina aadana lamid waayo arrintaas marka dhammaan waxay qorsaysaa dowladda dhexe wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha federaalka waxaan leeyahay hawshii inaad ka gaabiseen jidadka ha laisku furo maamul goboleedku kaalmo waayo waajibka waa dowladda xusaaniya jawhar laydin dooranayo baabuura lagu tagaayo xildhibaanadii federaalka ku tagaayay howlgal dowladda soomaaliya ay sameeyeen oo shabeellaha dhexe ka sameeyeenna waxaan marag ka ahayn in shir jaraa'id uu jawhar ku qabtay madaxweyne waare isaga oo sheegaya in yacni dowladda federaalka ay ku faragelinayso ammaankii loo igmaday haddii dowladda federaalka markay isku dayda inay wax ka qabato ammaanka hirshabeelle madaxdeeda ay leeyihiin dowladdu way soo xadgudubtay idinkana aadan waxba qabanayn maxay tahay waxaad rabtaan waxaan ku jirnaa xilligii isku diyaarintii isbedelka waxaan ku jirnaa xilligii samayntii jawigii isbedelka waxaan ku jirnaa xilligii dib u heshiisiintii ummaddaas loo qaban lahaa waqtiga cusub dhinac ka qaada bilaa idiin haray doorasho iyo saansaanteedana idinkama muuqato ma muddo kordhinaad rabtaan iyo afmaroorsi inagoo og in caburin saxaafadeed iyo caburin shacabba ay ka jirto hirshabeelle mise qorshe kale idinka yaalla nidaamka doorashada maadaama wax sanad ka yara idiin harsan tahay guddi doorashana aan idiin samaysnayn qorshe doorashana aan hirshabeelle ka socon siduu madaxweyne maxamed cabdiwaare sheegay hal maalin lagu dari maayo waqtiga aniguna diyaaraan unaha ballan waa war ayaan maqli jiray ugu dambeyn su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay adigu xildhibaanaad ahayd 3 sano iyo bilooyin hirshabeelle ayaad ka tirsan tahay beel ayaad si gaara ugu matashaa rajo ma ka qabtaa kursi yar inaad kusoo laabato anoo og in badan oo idinka mid a ay shacabku ka taagan yihiin allowna dhaafi hadduu ilaahay qore waa imaanaya insha allah maxay tahay fariinta aad u farayso ummadda reer hirshabeelle ee ku daawanaysa ummadda hirshabeelle waxaan leeyahay gacnaha isqabsada wanaagga ka shaqeeya qabiili qaran meel ma galo cadliga ha laga shaqeeyo madaxweyne maxamed cabdiwaale waxaan leeyahay shaashaa alaabtiisa dib a lagu soo celiyo maasanta guud ahaan intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamij gaar ah oo markaasi marti igu ahaa xildhibaan maxamed bashiir qaasim baqare oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle barnaamijkan barnaamij xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo